booliska dalka Koonfur Afrika ayaa baaritaano ay ka sameeyeen goobaha ganacsiga ee Soomaalidu ku leeyihiin dalkaasi waxa ay ku soo qabteen alaabo dad aan haysan warqadaha sharciga ee wadankaasi lagu joogo sida faahinta warkan oo halka ay nooga soo diray Maxamed Xasan Matka oo Somali Channel Koonfur Afrika uga soo warama ciidamada booliska gaar ahaan nooca loo yaqaan Metro Police ayaa saaki howlgalo ay ka sameeyeen xaafadda Soomaalida ay ka degan tahay magaalada Johannesburg ee Mefa waxay ku soo qabteen dhar aan u diiwaan gashanayn dawladda iyo kuwa kambaniyada ay iibiyaan ee qaaliga sida Nike iyo Puma kuwa oo lagu iibiyo suuqyada ayagoo feega sidoo kale booliska ayaa gacanta ku dhigay dad aan haysan waraqadaha qaxootiga ay ku joogaan dalkani waxaana ciidamadani xabsiga dhigeen dad ganacsato ah oo badnaa Soomaali, Malaawiyaan, Ethiopian iyo qoomiyado kale kuwa ayagoo aan haysan laysiga ganacsiga ee dalkani waxaana inta badan xirnaa goobaha ganacsiga intii uu howlgalkani soconayay haddaba qaar ka mid ah dadkii ganacsatada goobahooda la baaray lagana qaatay qaar ka mid ah alaabahooda ayaa la hadlay TV-ga Somali Channel booliis ah baawuro wataan so way yimaadeen waxay baarayaan qofna uma sheegin waxay qaadanayaan qofna uma sheegin laakiin way soo galeen dukaamadan koray fuuleen adikole dad wax way ka qaateen alaabo sida dukaankayga kale waa laga qaatay dukaamo kale oo badanna way ka qaateen dukaankaaga maxay ka qaateen kabo walahi ayaga markii waxay ku andacoonayeen alaabtan yacni waxay magacyo oo waxay leedahay sida Nike oo kale laakiin waa iska dabeecadeedo bilahan oo kale markii la gaaro inay Soomaalida dukaamadooda weerar culus markasta ku qaadaan ma week kastaba yimaadaan hadda last week oo kale way noo yimaadeen maanta oo kale way iska yimaadeen weerar handadaad maxay ahayto dad xataa oo jidka iska socday way wateen hadda dad badan oo lacag lagu soo daayay oo 200 300 laga soo qaataa soo wada arkay arxin waxay wax u dhaceen askartooga ayaa waxay soo gashay moolka Soomaalida ee ku ganacsato dukaamo badan waa ka qaateen alaab sharci darro ah oo magac ay raadinayeen maadaama iyaga ay waraaq ay wadan inay wax ku baaraan ay wadan ay tuuga ahaayeen wax dadna lacag bay ka qaateen wixii lacag siiyana lacag bay ka qaadanayeen sharci kuma aysan socon dukaamo badan la boobay dhowr dukaana wax laga qaatay dadkina way isku walaahobeen xawlaadii waa la xiray meel walba waa la xiray dadkii ay baaranayeen wixii sharci la way wateen dadkii sharciye way weydiinayeen alaabtan way ka qaadanayeen waxay arkaan si kastaba ha ahaatee ma markii ugu horeysay ciidamada Metro Police ay howlgallo ceenkan oo kala ah ay ka sameeyaan xaafadaha ay degan yihiin dadka ajaanibta ee ku nool magaalada tani Johannesburg Maxamed Xasan Ibrahim Matka TV-ga caalamiga ee Somali Channel Koonfur Afrika booliska dalka Koonfur Afrika ayaa baaritaano ay ka sameeyeen goobaha ganacsiga ee Soomaalidu ku leeyihiin dalkaasi waxa ay ku soo qabteen alaabo dad aan haysan warqadaha sharciga ee wadankaasi lagu joogo sida faahinta warkan oo halka ay nooga soo diray Maxamed Xasan Matka oo Somali Channel Koonfur Afrika uga soo warama ciidamada booliska gaar ahaan nooca loo yaqaan Metro Police ayaa saaki howlgalo ay ka sameeyeen xaafadda Soomaalida ay ka degan tahay magaalada Johannesburg ee Mefa waxay ku soo qabteen dhar aan u diiwaan gashanayn dawladda iyo kuwa kambaniyada ay iibiyaan ee qaaliga sida Nike iyo Puma kuwa oo lagu iibiyo suuqyada ayagoo feega sidoo kale booliska ayaa gacanta ku dhigay dad aan haysan waraqadaha qaxootiga ay ku joogaan dalkani waxaana ciidamadani xabsiga dhigeen dad ganacsato ah oo badnaa Soomaali, Malaawiyaan, Ethiopian iyo qoomiyado kale kuwa ayagoo aan haysan laysiga ganacsiga ee dalkani waxaana inta badan xirnaa goobaha ganacsiga intii uu howlgalkani soconayay haddaba qaar ka mid ah dadkii ganacsatada goobahooda la baaray lagana qaatay